dadka danta yar ee ku nool magaalada Garowe ayaa loo sameeyay afurin waxaana hay'adaha samafalka ee deegaanada ka howlgala loogu baaqay inay ka qayb qaataan caawinta dadkaasi. Wariyahana magaalada Garowe Yuusuf Maxamed Maxamuud ayaa warkan halkaasi inooga soo diray. afurinta danyarta aan awoodin inay helaan afur xilligooda soonka kadib ayaa afurin ugu samaysay magaalada Garowe caasimadda Puntland hay'adda Haro oo ka shaqeysa samafalka bulshada taagta daran. maxamed yuusuf nuur xamari oo ah madaxa jamciyadda wanaag faridda iyo xumaan reebidda oo sanooyin iyadu ku howlanayd afurinta danyarta ayaa uga mahad celiyay hay'adda Haro sadaqadan ay soo gaarsiiyeen walaalahooda Soomaaliyeed aan awoodin helista afurka. macallin yaasiin cabdulaahi cali oo wakiil ka ah hay'adda Haro ayaa dhankiisa sheegay in mar walba ay ka qayb qaataan taakulaynta walaalahooda tabaalaysan ayna si dhow uga warhayaan bulshada inteeda aan awoodin inay helaan afur xilliga bisha barakaysan ee Ramadaan. sameeyay hay'adda Haro walaalaha Soomaaliyeed oo Mareykanka ku nool weeye iyaga sadaqadan la baxay walaalaha Allah barakeeyo waana shaqadooda markasta inay ka qayb qaataan waxyaalaha lagu kaalmeynayo walaalahooda haddii ahaan lahayd wax cusub oo markaa dhacay ama haddii ahaan lahayd wax maxaan ku dhahaa wax looga qabanayo joogto ah labadaba waxbay ka qabtaan caafimaadka waxbay ka qabtaan waxbarashada waxbay ka qabtaan waxay wax ka qabtaan oo kale dadka dhibaataysan ayay wax ka qabtaan runtii deegaamadeennana waagaan dambe aad bay uga shaqaysay haddeer waxyaale aad ugu mashquulsaneen waxaa ka mid ahayd fatahaadii webigii beledweyne si fiican bay uga gurmutay halkaana galabtay sidoo kale waxay ka wadaa waa afur walaalaha muslimiinta ah ay afurinayaan marka dadkii la baxay sadaqadaas marka hore waxaan leenahay meesha ka keenay wax ka fiican Allah ugu bedelo sadaqa maqbuulan Allah uga dhigo sidoo kale maamulkeeda waa u mahad celinaynaa guud ee Mareykanka fadhigoodu yahay oo dadaalay oo meel kasta ka mid ah Soomaali joogto inay wax gaarsiiyaan isku dayay iyo walaalaha la baxay wax oo shaqeeyay oo hantidoodii bixiyay waqtigoodina bixiyay oo maalkooda walaalahooda ugu deeqay annaguna waxaan leenahay waan gaarsiinay waa u jeedaan waa la afurayaa soo wada insha Allah gaarsiiyo walaalihiin meel badan gaarsiiyo goobaha hadda wax lagu sadaqeeyana goobahan cuntada kaliya ma xataa raashin qalal malka qaarkood way bixiyaan marka guud ahaan waxaan rabnaa inaan dhahno qofka soo muslim walaalaha uga faa'iideeyo wuxuu haysto hadduu walaalkiis agoon caawin karo hadduu walaalkiis dhiban caawin karo mid sooman hadduu afurin karo. Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garowe.